waa mar kale iyo barnaamijkeena galabnimo ee maanta dhacdooyin kala duwan oo ka taagan bariga dhexe iyo caalamka ayaanu barnaamijkan idinkugu haynaa oo waxaa ka mid ah maamulka Israa'iil oo hadda u muuqda in uu gacanta taagay islamarkaana qiranaya in uu wax guul ah uusan ka keenin dagaal muddo 2 sanadood uu ku hayay magaalada Gaza. waxaanu eegi doonaa golaha wasiirada ee maamulka Israa'iil oo yiri dagaalkii aynu ku qaadnay magaalada Gaza magacii waynu ka bedelaynaa oo magac cusub ayaan u samaynaynaa. golaha wasiirada ayaa shiraya waanu ka hadli doonaa qodobkaasi. qaybaha kale ee barnaamijka waxaynu kusoo qaadan doonaa sarkaal sare oo ka tirsan kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin ayaa waxa uu sheegay in kooxdu ay qorsheynayso in ay sii hayn doonto ammaanka magaalada Gaza inta lagu guda jiro marxaladda kala guurka. arintan oo Israa'iil tiri haddii ay dhacdo dagaalka ayaa dib u bilaaban doona, annagana duqeymo ayaanu bilaabaynaa. xaaladdu meel xun bay maraysaa. madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trumpna waxa uu kashifay sir weyn oo waxa uu yiri Sacuudigu yaysan waxba been idin sheegin oo waxay rabaan inay ku soo biiraan heshiiska Ibrahim ee Trump uu garwadeenka ka yahay, kaasoo ujeedkiisu uu yahay in lagu aqoonsado xiriirna lagula samaysto maamulka Israa'iil. arintaasi si gaar ah ayaan uga hadli doonaa. qaybaha kale ee barnaamijka waxaynu eegi doonaa xaaladihii ugu dambeeyay ee magaaladaasi. marka hore haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. waa 18 bisha Oktoobar. dhacdooyin waaweyn oo ka jira caalamka ayaanu maanta si gaar ah u dul istaagi doonaa oo waxaanu barnaamijkeena ku bilaabaynaa. marka hore golaha wasiirada ee maamulka Israa'iil ayaa maalinta Axadda ah ee berri ah waxa ay dabcan isugu imaan doonaan kulan aan caadi ahayn, kaas oo si rasmi ah magaca looga bedelayo dagaalkii ay ku qaadeen magaalada Gaza iyo waliba dalka Iiraan. waxaana dagaaladaasi magac loo bixin doono uu yahay dagaalka soo noolaynta. Israa'iil dabcan waxay u muuqatay inay dhimatay siyaasad ahaan iyo sidoo kale amni ahaan, iyo xitaa in hubkooda uusan wax weyn uusan uga goynin marka la joogo goobaha dagaalka. marka hadda waxay leeyihiin dagaalkii aynu galnay ayaanu rabnaa in magaca aynu ka bedelno, aynu u bixino dagaalkii aynu ku soo noolaanay. dadyo fara badan oo falanqeeya arrimaha dhacdooyinka bariga dhexe waxay leeyihiin Israa'iil dabcan geeri ayay ku dhaweyd oo hadda waxay doonaysaa in shacabkii oo hadda u jeeda in wax guul ah aan laga keenin dagaalkaas, iyagoo baryootamayana ay hadda raadinayaan in meydadka iyo sidoo kale dadkii la haystayaasha ah loo soo celiyo. marka waxay doonayaan inay dadku yiraahdaan dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaalkii soo noolaanta ee Israa'iil ay ku soo noolaatay. dabcan aad baa loogu kala aragti duwan yahay. soo jeedintan waxa ayna keenay golaha wasiirada yiraahdeen dagaalka galnay waxa aynu ugu magac daraynaa dagaalkii soo noolaanta ama soo noolaynta Israa'iil gaaray ayna u dhimatay. bal qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada sidaad u aragto shirkan golaha wasiirada ee maalinta Axadda dhici doona ee magaca dagaalkii Gaza ay uga bedelayaan oo ay uga dhigayaan dagaalkii soo noolaanta. daawada miyay kula tahay Israa'iil inay soo noolaatay intii dagaalkaasi uu socday muddadii 2 sano ahayd, mise waxay kula tahay dagaalkaasi inay ku geeriyootay, awoodeedii la tusay, isla markaana aysan wixii hadda ka dambeeyay awood dambe aysan u yeelan doonin in wadan kale oo madax bannaan ay weerar ay ku qaado, iyadoo hadda dhowr wadan ku haysa. waxa u dambeeyay wadanka Qatar, gaar ahaan Dooxa, waatan hadda la duqeynayo Yemen, Lubnaan saasoo kale, Suuriya, dalal badan oo bariga dhexe dabcan duqeynaysa. marka waxay leedahay hadda shacabkeedana u sheegaysaa in dagaalkaasi ay ku soo noolaatay. bal aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag. waanu ka gudbaynaa warka weyn ee aadka loo hadalhayo maanta ilaa iyo xalay. waxa weeye sarkaal sare oo ka tirsan kooxda wax iska caabinta ee reer Falastiin oo magaciisu uu yahay Maxamed Nazal ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in kooxdu ay qorsheynayso inay sii hayn doonto ammaanka magaalada Gaza inta lagu guda jiro marxaladda kala guurka, isla markaana aysan awoodin inay ballan qaado in ay hubka ay dhigayso oo Israa'iil ay isku dhiibayso. markii la weydiiyay haddii kooxdan ay hubka ay dhigi doonto, waxa uu yiri sarkaalkaasi sare oo ka tirsan kooxdan wax iska caabinta ee reer Falastiin wuxuu ugu jawaabay ma oran karo ha ama maya, waxay ku xiran tahay buu yiri mashruuca. maxay ka dhigan tahay in hubka aad dhigtaan baa la weydiiyay. waxay ka dhigan tahay buu yiri inaanu isdhiibnay. marka waxa uu yiri annaga ammaanka magaaladan Gaza innaga ayaa sii hayn doona inta xaaladan kala guurka lagu jiro. dabcan lama aaminayo Israa'iil oo waxa ay haddaba duqeymo ay ku haysaa meel ka mid ah magaalada Gaza. shalay ilaa iyo xalay waxay duqeysay xaafada Khan Yunis ka tirsan, xitaa Lubnaan bay duqeysay. marka Falastiiniintu waxay leeyihiin annagu cidan iskuma aaminayno, waana in hubkeena aynu haysanaa. haddii xaaladdu ay barakamalay gaartana annagu waxaynu diyaar u nahay inaynu difaacno dalkeena iyo dhulkeena ayay yiraahdeen.
haddaba waxay ahayd maalin ka hor markii kooxdan wax iska caabinta ee reer falastiin ay gacanta ay ku dhigeen ugu yaraan gawaari gaaraysa waa gawaari xamuulah oo konton ku dhow kuwaas oo hub iyo saanad military u waday kooxda Abu-Shabaab waa basaasiin Israel maalgeliso oo hubna ay siiso kuwaas oo dabcan magaalada Gaza kula dagaalamayay kooxdan wax iska caabinta ee reer falastiin marka hubkaasina kooxdu gacanta bay ku haysaa oo way kala wareegtay basaasiintii Abu-Shabaab marka xaaladdu aad bay khatar u taagan tahay ayagoo markii horeba hub haystay ayaa haddana waxaa la leeyahay hubkii ay kooxdaasi kala wareegeen ayaa gacantooda ku jira haddana waxay leeyihiin ammaanka magaaladan inaga ayaa gacanta ku haynayno inta marxaladan kala guurka uu socdo taasoo marqura Israel hurdada ka kicisay ra'iisul wasaaraha maamulka Israel uu soo hadlay oo waxa uu yiri arintan walwal weyn bay waxay ku tahay in Israel iyo sidoo kale heshiiskan socdo haddii nimankan ay ku sii adkaystaan in magaaladan ay sii haysan doonaan annaguna waxaynu qaadanaynaa tallaabo taaqsigeeda ah oo ka dhigan buu yiri in dagaal aynu qaadno bal qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada sidaad u aragto in kooxdan ammaanka magaalada ay sii hayn karto iyo in dabcan hubka laga dhigo iyo waliba in ay dabcan Israel isu dhiibto intuba doodo waaweyn ayaa ka furan aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag aad iyo aad baad u mahadsantihiin waanu ka gudbaynaa qodobada kale ee barnaamijkaynu eegno madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa xalay ka shifay sir weyn oo Sacuudiga uu muddo u qarinayay waatii dowladda Sacuudiga iyo dhaxal sugaha dalkaasi Maxamed bin Salman ay sheegayeen inaysan Israel wax xiriir ah oo diblomaasiyadeed iyo sidoo kale xiriir kale aysan la samaysan doonin Israel ayaa madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu soo hadlay oo waxa uu yiri Sacuudigu waxa ay noo sheegeen inay rabaan inay ku soo biiraan heshiiska Ibrahim Accord liiraahdo kaasoo ujeedkiisu uu yahay dabcan in xiriir diblomaasiyadeed lagula sameeyo Israel isla markaana xiriirkooda caadi laga dhigo Trump waxa uu yiri saraakiisha Mareykanka ayaa noo xaqiijiyay oo noo yimid oo waxay yiraahdeen shalay diyaar baan u nahay Israel inaan aqoonsano xiriir diblomaasiyadeedna aan la sameysano waxaan la yeeshay wada hadal aad u wanaagsan ayaa yiri Trump waxa kale uu ku sheegay wareysi Focus Business News uu siinayay inuu dabcan uu wareysigaas uu ku sheegay in Sacuudigu ay u xaqiijiyeen in Israel dhawaan xiriirkeeda ay wanaajin doonaan kuna soo biiri doonaan dalalka kale ee reer Carbeed ee haddaba xiriirka xagga diblomaasiyadda la wadaaga ama la sameystay maamulkan Israel bal qaybta hoose nagula wadaag daawada sidee baad u aragtaa Sacuudigii oo la ogaa in uu dabcan xilligii dagaalada Gaza uu meel adag ka taagnaa inuu hadda Trump uu yimid oo uu leeyahay Trump anaga diyaar baan u nahay Israel inaan aqoonsano xiriir diblomaasiyadeedna aynu la sameysano dabcan Imaaraadka Carabta ba hadda ku dhiban in xiriirkan Israel uu la leeyahay waatii xaaladooda meel adag ay gaartay xiriirkii diblomaasiyadda xitaa uu ku dhawaaday in dabcan meesha uu ka baxo Imaaraadka Carabta xitaa uu ka baqay in Israel ay soo duqeyso sidii Qatar ay u duqeysay oo kale marka Sacuudiguna meeshaas iyo bartaas buu u socdaa aad baa looga hadlayaa waxa la leeyahay dhaxal sugaha Sacuudiga iyo sidoo kale boqortooyada uu hadda hogaamiyo dabcan aad baa looga dhursugayaa bal haddii warkan ay kasoo jawaabi doonaan oo ay dhihi doonaan Trump been buu sheegayaa iyo haddii Trump warkiisa uu dhab u yahay intaba waa la sugayaa dabcan qaybta hoose nagula wadaag Sacuudiga arintaasi Trump uu kasoo qarxiyay ama uu dabcan uu banaanka ka keenay sidaad u aragto iyo sidoo kale qodobada kale ee barnaamijka hayloobin inaad subscribe noo saarto dhacdooyin kale oo waaweyn oo kuwan lamid ah ayaanu saacad kasta soo gelin doonaa